wariyaha BBC-da ee Muqdisho Maxamed Ibrahim Macalimow oo goobjoog ka ahaa munaasabadda furitaanka shirka ayaa shirkaasi ka waraysay Sheekh Ahmed Maxamed Islaam Ahmed Madoobe oo madax u ah maamulka ku-meel gaarka ee gacanta ku haya magaalada Kismaayo. balse Macalimow waxa uu marka hore weydiiyey Ahmed Madoobe sida ay maamulkoodu u arkeen shaqaqadii dadku ku dhinteen ee dhawaan ka dhacday magaalada Kismaayo. Macalimow dad waa sakarta hadda Kismaayo waa amni xamal baa jirtay maalin waxba ka dhacay ama isku dhac qaabka loo buuqulay bulshada ogaadaya ma si sax Kismaayo loo qabta wuu dhacay isku dhacay idamada keenta ma aha beero inay ka dhacsan maalin buu ka dhaca waa baqaara maalintii ka dhacay isku dhac baa jiray waana la xaliyay wax gacanta maamulka ka dheeran muu samayn tamarka wasleeyahay waa arrin aad u sahlan bay wax dhibaatiin ka jira Kismaayo meelaha ugu amniga roobka ka wata meelaha shabaabka laga qabto way jiraan qaraxyo marmar dhaca inooya la dhigo shabaabka laakiin dadka aan nala shaqeeyay dadka soo sheegay mararba wax jira qalad ka jira marka waxaad leedahay dhawaan iskoorimaadkii dhacay wax gocashaa marar meesha ku dhamaaday arrintaasi wax dhib kama jiro waxbana malaha raada mara xataa malaha maanta sidaan ognahay magaalada waxaa ka furmay shir maamul gobolada Jubbooyinka loogu samaynayo shirkaasi yaa idinka saacidaya waxaan ognahay inay lacag badan ku baxayso dad fara badan la isu keenay waa ay idinka saacidaysaa waxaa laga saacidaya ganacsatada gaar ahaan ganacsato reer Jubbaland oo Jubbaland Chamber of Commerce qola la yidhaahdo dadweynaha maamulka waa qaaraan guud oo loogu leeyahay marka waxaan leeyahay arrintaasi dadku iyagaa isku tashada marka lacag intee leeg waa la filayaa inay ku baxdo shirkaas ilaa 2 milyan iyo 500 milyan baan filayaa oo dollar shirkaasi maxaa ugu dambeyn la filayaa marka inay ka soo baxaan waxa ugu dambeyn la filayaa reer Jubbaland oo maamul iyagu ay leeyihiin samaysta oo isku tashada oo iyagu maamul qaybsada oo aan dhibaatada masii soconin oo anaa taabsaday iyo qabiil heel baa raabsaday maanta qola haysata midna ayna jirin waxay dadku qaracsiin iyagu leeyihiin ay samaystaan laakiin dad baa hadda sidaa tuhmaya dadka sidaa tuhmaya maxaa ku qancinaysaa beel baa sad buursi samaynaysa horta guddida nimanka hadda dagaalka ku qabtay magaalada shabaab ka saaray anaa guddoomiye ka anigii waxaan leeyahay miiskay naga saaran tahay Soomaaliya oo dhan ay isu sharaxdo dadku waxay leeyihiin ha samaysteen marka cidda anaga qalbigeeda jahaysa waay ma beel maya nin waliba ha yimaado dowladda rabnaa inay tayadu timaado beesha qaladka wadinta dawladda ay si jeergaraysay iyadoo gaagsi gacanta ku qabato laakiin dadka qaarkii waxay qabeen maamulka lagu degdegay maadaama goboladii Jubbooyinka weli Kismaayo iyo degmooyin kale oo dhowra aad gacanta ku dhigteen oo weli gobolkii Jubbada Hoose uusan dhamaystirnayn Jubbada Dhexena gabi ahaan shabaab ay gacanta ku hayaan in arrintaasi ay u muuqato arrin lagu yara degdegayo dadka aragtida qaba sidee ku qancinaysaa hadday noqoto waddanka in la qabto in la xoreeyo ama gobolka wax laga qabto maamul iyo system wax laga qaban karaa Macalimow Muqdisho markii dowladda hadda la dhisay xamar in qayb ka mid oo badan shabaab baa gacanta ku haysa soosma okay markii xamar sidaa ahayd dowladdii dhexna qaabkaa lagu dhisayo tan lama dhisi karin dowladda dhex maxaa loo dhisaya dhulkii waa la wada haystaan taas ma aha caqligaas caqli shaqaynaya ma waayo shabaabna laga xorayn waxba lala dhisin fowdada iska socoto adiguna si hogaamiye kooxeedka anaguna magaalada iska haysano meelaha dekadii iyo intana haystaan saasay noqonaysa marka waxaa la arrintaas shay saxa maaha marka adigu ma ka mid tahay murashaxiinta soo taagaysa inay qabtaan madaxtinimada Jubbaland waan ka mid baanahay ma u sharaxin inaan leeyahay anigu waan soo dagaalamay ka shakhsi muwaadin Soomaaliya baan u sharaxnaa magaalada Kismaayo waxaa ka furmay shir ujeedadiisu tahay maamul samaynta gobolada Jubbooyinka Sheekh Ahmed Maxamed Islaam Sheekh Ahmed Madoobe oo ka mid ah qabanqaabiyaasha shirkan ayaa VOA u sheegay inay dowladda Soomaaliya ku marti qaadeen shirkan jawaabna ay ka sugayaan Hussein Barre Aadan oo khadka telefoonka kula xiriiray Sheekh Ahmed Madoobe ayaa ugu horreyntii weydiiyey bal inuu faahfaahin ka bixiyo shirka ka furmay Kismaayo
عرفت نوجه وهاي هي كمان وحاجتي وكانت كعادمتي وكان بشدي في سنة وكانت أجري ما كنت أقول intii lag baad rajaynaysaa inuu shirkaasi socdo وأنا كل شيء كان وكل كان صوته وأنا دائما إنه شيء في معموس وأنا كل ما طبعا في لنا ما كان شيء أنا بدخل على مخلص كل ما نسيت وكسر بنتي أنا عارفين إنه في أفعال ولا shirkan qabashadiisa iyo qabaqaabadiisa yaa idinka gacan siiyey شركة مالكي أوريدي وأيضا بالنسبة للمسؤولين من المسؤولين منكم فريق جنرال وكذا كذا كميتي وأرجع شفدية وشركات البيع لكن هذا كمشروع الشركة شفتش أنا لو صايرين وقوانينا قعدت البيع كشيء عامل كذي واحد كنت مش غير إنه عاصم الحاجات هذه اللي تبيني ومش موجود عليه sheekh axmed horey dowladda waad u wada hadasheen waxaana la filayay inaad muqdisho tagto marka ma waxaa jira khilaaf dowladda idinka dhexeeya laakiin sidaan ka warqabno waxaa jira shir kale oo lagu baaqay magaalada muqdisho lagu qabto maxay ku kala duwan yihiin labada shir marka marka waa waxaad leedahay dowladda waxaan isla ognahay inay ka soo qayb galaan shirkan oo ay wafdi usoo dirsato wax jawaaba dowladda idinkaga soo noqotay ma jirtaa waayahay dadka qaadacsan shirkan wadahadal idin dhex maray ma jiraan jubbooyinka waxaa jira dhul weli ay al-shabaab haysato kuwaasi iyada maxaad ugu tala gasheen mala odhan karaa shirkani wuxuu ka soo hormaray intii loogu talagalay oo waxay ahayd marka hore in al-shabaab laga saaro dhulka waayahay waxaad ii sheegtay inaad muqdisho tegaysid marka maxay tahay ujeeddadaad muqdisho u tegaysaa marka ma intuu shirku socdaad u tegi doontaa dowladda mise waxaad sugaysaan markuu shirku dhammaado ee natiija ay ka soo baxdo haddii aad si fiican u qeexdid ujeeddada shirkan ma mid aad doonaysaan in maamul gaar ah oo maamul goboleed aad ugu samaysaan jubbooyinkaba kaasi waxa uu ahaa sheekh axmed maxamed islaam sheekh axmed madoobe oo u waramayay wariyaheena xuseen baraadan oo jooga magaalada washington